بسم الله الرحمن الرحيم مدن الرئيس وزاري مدحوينياشا دولة goboleedyada madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug gudoomiyaha baarlamaanka golaha wasiirada ee dowladda federaalka golaha wasiirada ee dowlad goboleedyada xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal ururada bulshada culimada dhalinyarada iyo bahda saxaafadda kulli waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore allah mahadskale oo noo suurtageliyey caawa in wixii aan ka shaqaynaynay dhowr casho horeyna ay waalehen u joogeen shan iyo toban casho in ku dhow ay noo soo gabagabowday qaybtii hore haddana aan u ballansannahay inaan isu imaano kulan dambe oo soo socda hadduu ilaah yidhaahdo waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha axmed qorqoor iyo howlwadeennadiisa iyo golihiisa wasiirada iyo guud ahaan shacabka iyo magaaladan dadka degan dhuusamareeb sida sharafta leh ee waaltinimada leh ee kalgacaltooyada leh ay noo soo dhoweeyeen intaasoo qof oo marti ah ay guryahooda u fureen oo ay gacmahooda u fureen aad iyo aad iyo aad runtii uga mahadcelinayna xaqiiqatan muddadii yarta ahayd uu joogay iyo waxa uu qabtay waxa isu dhow maaha 6 bilood uu joogay runtii wuxuu muujiyey leadership iyo hoggaan wanaagsan ayuu muujiyey wuxuu ka bilaabay inuu isku soo leexiyo oo raadiyo dadkii ka fikrad wanaa oo qaar ka mid ah uu annaga naga soo kaxeeyey taas waxay muujinaysaa kalsooni inuu isku kalsoon yahay iyo waxa uu rabo inuu u qabto gobolka isagoo aan fiirinaynin kala ra'yi duwanaanshaha siyaasadeed kadib wuxuu xog waran u tegey degmooyinka iyo tuulooyinka iyo magaalooyinka si uu u soo ogaado xaaladda ay ku jiraan iyo baahidooda taasi waxay runtii u suurtagelisay muddo 2 bilood ku dhowaada inuu soo ogaado uu dowladda dhexena report u soo diro baahidooda baahida ay qabaan galmudug baahi aad u badan weyn oo u baahan wax alla wixii karaankeenna ah inaan gacan ka siino dhan walbaba hadday tahay horumarin hadday tahay iyo dhinac walba aan ka kabno waxaan ku amrayaa ama farayaa xukuumadda inay ku siiso muhiimad gaar ah ayna raadiso si kasta ay galmudug u caawin karto kulankani wuxuu daba socday kulamo hore oo naga baaqday oo dhowr jeer intaan ballannay ay suurtoobi weyday sababo jiro dartood mar kale waa u mahadcelinayaa inuu dusha saartay isagoo muddo yar jooga inuu qaato mas-uuliyaddaas xoog leh isagoo dhaqaale iyo organisation dhammaystiran ba aan lahayn alxamdulilah hadda waxaan aragnaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisu iyo guud ahaan shacabka reer galmudug inay u diyaarsan yihiin inay u istaagaan dib u dhiska gobolka annaguna waa naga ballan wax alla wixii karaankeenna ah waa idina garab taaganna maanta ama caawa waa maalin taariikhi ah oo aan halkan isugu nimid inaan ka wada hadalno
go-aan maaha inaan is dhagaysano kala ra'yi duwaanashaheenna aan isu dulqaadanno aan isu tanaasulno oo aan uga hadalno masiirka dalka aan uga hadalno iyo mustaqbalkiisa iyo mustaqbalka carruurteena aan uga hadalno waxaan rabaa inaan waxyar ka yidhaahdo muhiimadda aan halkan isugu nimid waa la taataabtay waxaa laga hadlay shakhsiyaad ama dad raba in ay doorashada ku soo noqdaan ama baqdin ka qaba intaas waa ka weynta shakhsi iyo rabitaankiisa way ka weynta anugu waxaan ku imid nidaam la yidhaahdo doorasho dadban oo aanan dalka hore uga dhicin waxaa ka horreeyey doorasho oday dhaqameedyadu ay soo xulaayeen labada waa ogeyn culays badan yaa saarnaa dadkuna waxay qabeen walaaho wareer qaarna waa waanaayeenba say ugu soo noqon lahaayeen sababta wax kale ma ah nidaamka lagu soo noqonayo yaan la garanayn waa lagu qanacsanaa 2016 nidaamkii lagu yimid maxaa yeelay nidaam hore loo yaqaano ma ahayn waxay ahayd nidaam lagu heshiiyey oo wada ogol ahayd wixii ka dambeeyey waxaa lagu ballamay inaanan qaabkii hore qaab ka duwan wax loo sameeyo oo ah doorasho aanan ahayn qaabkii dadbanaa sida dastuurka uu qabo oo ah doorasho toos ah ama qof iyo coda dad badan yaa waxay qabaan inaan runtii aan ka gaabinay oo aanan waxba ka qaban oo sanadkii hadda ugu dambeeyey 2020ga aan soo baraarugnay oo maalin walba idaacadaha u sheega shacabkana ugu celceliya xaqiiqatan hawshaa hadda aan u fadhinno waxaan soo bilaawnay markii la doortay maxaa yeelay waxyaabihii la ii siiyey mandateska yaa waxaa ka mid ahaa dalku inuu aado qof iyo cod afar bilood markaan joognay yaa waxaan samaynay guddi oo dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay ku midoobeen dowladahu xubnaha ka ah waxay soo dirsadeen dadkoodii ugu fiicnaa ugu aqoonta badnaa ugu khibradda badnaa annagana waxaan soo dirsannay kuweennina ugu fiicnaa yaan soo dirsannay muddo hal sano ah yay ka shaqaynayeen waxaan ka hadlayaa waa markii aan ka soo noqonnay London Conference yaan bilownay guddigaas inuu howl galo Nairobi ku shiraan Jabuuti ku shiraan dowlad goboleedyada meelahooda ku shiraan xamar bay ku shiraan waxay keeneen waxaan u dirnay 4 ajenda yaan u dirnay inclusive politics ay ku jirto qof iyo cod anugu waxaan rabaa inaan xog idin siiyo siday waxay yihiin inaan wax idinkugu sheego inclusive politicsku oo ah doorashada loo dhan yahay oo ay ku jirto nidaamka aan isku dooran doonno sida dastuurku qabo waxaa ku jiray khayraad qaybsi dastuurka reviewgiisa ku jiray waxaa ku jiray garsoorka ayaa ku jiray shaqadii ay qabteen miraheedii waxay soo dhammaatay laba ajenda June 2018 annagoo ku wada qaracsan iyo waxay noo keeneen qorshihii doorashada qaabkii lagu geli lahaa iyo modelkii iyo sidii aan khayraadka u qaybsan lahayn macnaheedu waxay tahay waxaan bilownay maalintii aan nimid xukunkaan bilownay in dalka aan u diyaarinno election soo socda direct election ama election toos ah oo qof iyo cod ah meeshaas way meesha ay wax ka bilowdeen annagoo wada soconna oo raalli isaga ah oo ku qanacsan oo weliba ku faanayna inaan bilownay processkii waqti aad u horeeya golihii wasiiradu maxaan ku yidhaahdaa sharcigii aan keennay golaha wasiiradu waa iska gudbiyeen waxay u gudbiyeen baarlamaanka
sharcigii annagu aan gudbinay maahay baarlamaanku intay fadhiisteen oo muddo qaateen iyo waxay soo saareen sharcigii aan geennay mid ka duwan oo aan shaqo ku lahayn waxa kaliya isaga mid ahaayeen ay ahayd doorasho qof iyo cod ah kaliya anigu qof aan wacay oo guddigaas ka mid ahaa loo xil saaray hal qof aan wacay ma jiro amaan la hadlay oo aan idhi war keennii annagu aan keennay yaa khayr roolaaye kaas maa qaadataan iyagoo naga sii jeeda oo wax naga cararaya yee waxay la soo baxeen kan hadda yaalla waxaa la lahaa madaxweynuhu waa diidi doonaa bacdamaa uu ahaa kii hore mid uu isaga toshay jaakad uu toshay laakiin shacabka weynaha soomaaliyeed iyo qof walba waxaan u caddeeyey kan kii aan toshay inuusan ahayn laakiin aan saxiixay haddii dalku uu hore u soconayo oo taariikh cusub aan gelayno anigoona ku qanacsanayn maxaa yeelay waxaan ogahay in aan lagu noqon karin wixii aan hore u soo marnay oo haddaan ku noqonno na lagu eedeynayo inaan annagu waxba ku darin oo meeshii 2016 aan joogno waad ogtihiinoo dee siyaasigu wuxuu rabaa wuxuu ku faano uu yidhaahdo waxbaan gaar ma ku faani karo 2016 baan joogaa kuma faani karo annaga waxay naga ahayd dadaal marka intaas waxaa dheer oo aan ka shaqaynayay maalintiina la doortay ilaa maanta waxaan ku haynaa shacabka xiriirka shacabka iyo dowladda waa in la xoojiyo waa in awoodda shacabka lagu celiyo waa in shacabku ay yihiin sovereign dadka dowladnimo iska leh oo dalka iska leh yaa ku horreeyay oo shacabkii waa kicin laabtoodii waa kicin waxay aaminsan yihiin inay aadi doonaan doorasho toos ah bacdamaa wax alla wixii doorasho ahaa oo la yaqaanay hore loo soo maray baarlamaankii sida la sheegayo iyagoo ka cararaya madaxweynayaashii yaa waxay keeneen mid runtii xitaa aan la garanayn inay kusoo noqonayaan iyagoo dhan laakiin faa'iidadiis wuxuu yahay shacabkii yaa waxay heli doonaan fursad dalku wuxuu heli doonaa in la yidhaahdo soomaaliya waa istaagtay dalkeenu wuxuu heli doonaa sumcad ah muddo dheer ka bacdi soomaaliya waxay u gudubtay dimuqraadiyad hadda ogaada 100% inuu ficnaan doono in kale lama yaqaano laakiin waxaan ognahay in uu yahay wixii muddo dheer lagu riyoonayo oo la lahaa waa loo gudbi doonaa iyadoo ay saas tahay yaa waxaana soo galay coronavirus wuxuu naga qaatay muddo 6 bilooda muddadaad arkaysaan oo dib u dhacay waa muddadii dalku kala xirnaa laakiin wixii aan dadku sheegayn muddada dheer wixii dowlad goboleedyada iyo annaga aan waa hore go-aan ku qaadanay wixii caalamka iyo beesha caalamka ay ahayd inay ku faanaan oo yidhahdaan soomaaliya muddo dheer yaad dhaqaalo geliseen oo intaas aad kala shaqaynayseen inay institutionskoodu uu dhismo maanta soomaaliya waa istaagtay meeshaas way meesha hadda la joogo baarlamaankii oo soo taagan oo leh sharci baan diyaarinay oo doorasho guddigii madax banaana doorashooyinka oo leh doorashadii waa qaban karnaa bacdamaa ay soo shaqaynayeen muddo 6 sano ah iyo walaalahay oo leh xaaladdeeda ma joogtaa xaaladdii ma joogtaa lagu qaban lahaa hawshaas doorku meeshaas way meeshay loo taagan tahay marka hadda waxaan isku afgaranay inaan wadno doodii marka oo annagoo iscalool xaaranay oo si fiican u sheekaysanay oo saaxiibbo noqono aad isugu soo dhawaaday
inaan ka sheekaysano shacabka waxaan ku celin lahay aan u sheegi lahay xildhibaanadii dastuurkii iyo shuruucdii ay ansixiyeen sidii laga yeeli lahaa iyo duruufta jirta meeshaas waa meeshii hadda joogta marka aniga meeshii waxay iga aadan waxay tahay madaxweynihii qaranka waxaa laga rabaa inuu ahaado ilaaliyihii sharciga iyo dastuurka iyadoo ay saas tahayna inuu waaqici yahay oo xaaladda dalka ka jirta uu og yahay uuna wax walba oo wax walba ay tahay in lagu saleeyo macnaheedu waxay tahay ilaahay runtii wuxuuna siiyey khibrado badan ileen waxaan soo soconnay muddo dheer ayaan soo soconnay intii dowladda dhexe burburtay dowladdii burburkii ka bacdi waxaa soo dhisay saad la socotaan siyaasiyiin jabuutaa lagu soo dhisay 10 sano way shaqayn weyday tii ku xigtay civil society-gaa dhisay oo carta lagu dhisay 2000 iyo oday dhaqameedyo iyo siyaasiyiin tii ku xigtay waxaa soo dhisay hogaamin kooxeedyo oo lagu qancinayay iyaga tii ku xigtay culumaa soo dhistay oo iyagoo lahaa bal iyagii ha lagu kala qaybiyo ama hal ha lagu gaaro tii ku xigtay oday dhaqameed baa soo dhisay oo waa tii uu xasan sheekh ku yimid tii ku xigtana waxay ahayd model ka fiican wixii oo dhan oo 51 erga ah su-aashu waxay tahay marka ma shacabkaan dib ugu celinaa ma cilmi kalaan keennaa waa xigmad annaga nagu jirta annagoo ilaahay kaashanayna waa su-aal meesha taagan marka waa isu soo noqonaynaa hadduu ilaah yihahdo waa ku ballannay annagoo maskax furan oo open minded ah qof walbana uu dib ugu noqday meeshii uu ka yimid oo uu dib la tashi u samayn karo ama dib ula tashan karo dadkii uu ka yimid annagoo xaaladdaas inaan isku soo noqonno oo aan raadinno halkaasna uusan noqon mid shakhsiyaadkeena noo wanaagsan laakiin uu yahay mid shacabka soomaaliyeed iyo sumcadda soomaaliyeed u wanaagsan inuu yahay waa xaqiiqa maantaan joognaa taariikh baa qormaysa ma naqaano waxa aan ka shaqeynayno ma wax fiican bay noqon doonaan mise waa xun laakiin haddii intentionkeenna uu yahay wax wanaagsan ilaahayna tawakalano waxaan aaminsanahay inaan guulaysan karno haddii aan maskaxdeenna isu geyno sidii la sheegay haddaan isu dul qaadanno iyo haddaan isu tanaasulno ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay dalku meel fiican buu ku socdaa waxba yaan la qalbi jabin mas-uuliyiintii dalku ugu sarraysaan nahay waxaan ka fakeraynaa danta guud yaan ka fakeraynaa danta shaksiga ahna kollayba waa ku ballan inaan ka tagno waxaan soo wadnana ma aha wax ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed iyo sumcadda soomaaliyeed u daran noqon mayso insha allah hadduu ilaah yidhaahdo intaas waxaan u sheegayaa waxay tahay waa macluumaad ma aha faker ma aha opinion ma aha waa macluumaad soo jiray waa macluumaad aan ku soo dhex jirnay oo aan ka shaqaynaynay iyo mustaqbalkii oo lagu kala fakr duwan yahay sidii lagu gaari lahaa waana caafimaad haddii la kala fakr duwan yahay oo qof walba uu haysto faker gaar ah waa caafimaad muhiimku wuxuu yahay in aan ogolnahay inaan isu imaanno fakerkii aan isu geyno waxa danta dadka ah ama danta dalka ah inaan ka shaqeyno baarlamaankana taasaan ka rabnaa iyaga naftigooda dowlad goboleedyada madaxdooda waxaan ka rabnaa taas anigana dhexdaan u fadhiyaa oo waxaan ahay ilaaliyihii sharcigaana isla markaasna siyaasad lagama tegaayo iyada naftigeeda waa in la helo xal siyaasadeed oo dadku ay ku qanci karaan in la helo marka mas-uuliyaddaasi waa la wada saarantahay kulligay
haddaan uga shaqeyno sida ilaahay ugu ogyahay sida shacabkeennu ay raaliga ka yihiin sida qalbigeena u wanaagsan oo ah wax wanaagsan in aan dalkan uga tagno taariikhna aan uga tagno waxaan aaminsanahay inaan gaari karno waxa dalka u wanaagsan inaan gaari karno insha allah anugu dib baan waxaan ugu noqonayaa baarlamaankii waxaan kusoo wargelinayaa waxaan saaxiibadeena ku sheekaysanay uu cabdicasiis yiri halkan kama sheegi karno iyaguna dadkooda dib ugu noqonayaan hadduu ilaahay yidhaahdo waan soo noqonaynaa annagoo qalbi fiican annagoo rabna wax wanaagsan inaan ka shaqeyno oo ah wax annaga danteena ka weyn wax danteena ka weyn oo maslaxad shacabkeenna iyo mustaqbalka carruurteenna ay ku jirto walaalayaal mar kale waa mahadsantihiin sida wanaagsan aad noo soo dhaweyseen sida aad noogu gogasheen guryihiinna sidaad raashinka wafdiga halka yimid oo faraha badan aad runtii u soo dhaweyseen ood u qaabisheen waxay la tahay inta halkan joogta waxaan waa markaan 15 kaliya maaha inay soo noqnoqon doona hadduu ilaahi yidhaahdo hadalkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa dalku meel fiican buu u socdaa annagana si fiican baan wax u wadnaa rajadiinna ha wanaagsanaato shacabka soomaaliyeed meel kasta joogaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi